nabadgelyo ma kaa maqan yihiin caruur kaaluntay ma aragtay ilmo tiro badan oo maalin kasta la baafinayo xaguu ku yaala xafiiska lagu iibsado xubnaha jirka bini'aadamka yaase ka dambeeya caruurta la xado muuqaalkan waxa uu kaaga jawaabayaa weydiimahaas oo dhan balse like garee muuqaalka si uu u gaaro kumanaan qoys oo Soomaaliyeed oo fariintan ay digniin u noqon karto maalin kasta waxaan baafinaa ku dhawaad 15 ilaa 20 caruur ah waxaana la soo xiriira hooyooyin walwalsan haddaba maxaa qaldan waa su'aal maankay ka guuxaysa dad badanna ay isweydiinayaan waalidow u dhug lahaw ilmahaaga waayo Muqdisho kooxdan qooleysatada ah waxay ku sameysteen xafiis gurguura bal ila dhageyso haweeney Soomaaliyeed oo gabar Soomaaliyeed ka dhaadhicinayso inay kala shaqeyso iibsashada abayaha xarumo waan leenahay gobol kasta oo Puntland kamidana waan ku leenahay gobollo badan baan ku leenahay sida gobollada Puntland oo kale Soomaaliland oo kale in koonfur galbeed oo kale Jubbaland Soomaaliya waxaan ka wada calaashan Soomaaliya ka wada federaalka oo kale meelo badan baan ku leenahay Dubai baan ku leenahay waa ku leenahay adoo caalamka oo dhan waan ku leenahay sida Ethiopia meelaha noogu dhow oo waxyaalaha mataqaan qaliimada adag noogu fududaadaan waa Ethiopia ilaa Nairobi oo kale soo dhaqaatiir caalamka waxa jooga khatar ah iyagoo kale badan operationada waa lagu galaa ama taqaanal laga yaabo in Soomaaliya ay mid kale kaaga sheekeyn karo kaliya maahan ama beerka ama xubnaha kale oo qofka bini'aadanka xitaa makanka haweenka ayay kooxdan qooleysatada ee jirka bini'aadanka ganacsada ka shaqeystaan kooxdan ilmaha afduubato waa koox si farsameysan u shaqeysato marka hore caruurta waxay ku qaldaan waxyaabaha ay jecel yihiin kadib waxay u isticmaalaan daawooyinka hurdada ma ahan wax ku cusub caalamka ase yeeshee dalkeena oo kooxdan qooleysatada xilligan ay u arkeen mid bayla ah waxa ay qatarta ka dhigaysaa mid sareysa maalin kasta ilmo ayaa la xadaa qaar ayaa la waayaa kuwa kalena waxa laga helaa midadkooda jidadka meel kale ha ka dayin kooxdan waa koox adiga kugu dhaqan ah kugu diin ah iyo kugu af ah hoteelada ayay si koox u kireystaan sababtuna waa iyaga oo aan dabagal iyo xubin qofeed lagu samaynin una saaran tahay inay dadka rabaan geystaan kuna fushisaan howlahooda si kasta oo ay ahaataba Zakariya Timcadde soo ma jirin koox gacanta lagu dhigay oo booliiska Soomaaliyeed ay qabteen kuwaas oo ka shaqeysan jiray xubnaha jirka bini'aadamka haba u badnaadeen caruurta oo ay bartilmaameedsan jireen xal iska weydiiyay arintaas walaal Nasir Maxamed waxay ahayd 12 bilood ka hor waxay ahayd shabakadaasi oo la qabtay 10 qof iyo hal qof kamid ah waxay ahayd dumar CID-da booliiska Soomaaliya ayaa la geeyay kiiskaas ilaa hadda meesha uu ku dambeeyo cid sheegi karta ma laha booliiska ma aqaan in la gacan bidxiyo ama jufcuud la isku jeclaa la isku qaabili balse adiga iyo aniga iyo Soomaalida waxba kama warhayaan kiiskaas iyo dadka la qabtaybo meesha ay ku dambeeyay